nabad iyo baraare iyo barwaaqo ku noolaada. ilaahay subxaanahu watacaala cizi iyo sharaf allah idin kordhiyo. annana waa idin ducaynay, waana idin maxay ahaydayay karaamadii aad inagu soo dhoweyseen oo culimmada halkay idinka joogto oo aan maxay ahayda idinka dareennayna dee taariikhdaa qoraysa. sida uu wasiirku yidhi, halkan waa meeshii ugu horreysay oo aanu ka doorannay carro soomaaliya, soomaali meelay degan tahay oo dhan. taasina runtii waa inaad maxay ahayday noo ogaataan marka intan oo kale ani iyo culimmadeennaba in aan imaado. maxaa yeelay nabadda ballaaran oo taal, maxaa yeelay wanaagga yaal, maxaa yeelay culimo jacaylka iyo diinta taal. maalin dhoweyd baa waxaa ka dhacday Hargeysa musaabaqo qur'aan oo aanan adduunka, sida uu sheekh cabdirashiid ba markhaati ka yahay, 10 qiraa'oodoo qur'aanka ayaa waxaa lagu qabtaa Kuwait iyo meelo dhowra. haddayan Kuwait ba ku koobnayn, Kuwait keliya weeye. waxaa ka qayb gala, waxaa loo diraa maxay casumaad adduunka oo dhan, carab iyo cajam iyo meel walba. waxaa ka soo qayb gala 14 keliya, markay ugu badneed 14 13 sheekh sidaa ma tahay. waa Kuwait. casho dhawaad bishii hore halkan waxaa ka dhacday Hargeysa, Somaliland, musaabaqada 10 qiraa'ood lagu tartamayey. waxaa ku tartamay dhowr iyo 20 tartame. taariikhda ma ka dhicin intaan ognahay. waxaa taa raacda, waxa tartamayey waxay ahaayeen wiilal iyo gabdhaba. waa mid kaloo aad iyo aad ii soo jiidatay. waa waxa inagu xambaaray in aan ku nuuxnuucsanno oo go-aan adag ka gaarno halkan inaan mu'tamarkaa ku qabanno. marka shacabka iyo xukuumadda iyo maxay ahaydayay madaxdaba iyo mudane muuse bixi cabdi waxaan ugu tahniyeynayaa sida ay u garab taagan yihiin diinta iyo maxay ahayd. habeen dhaweed muusan dhegaysanayey, madaxweynahayga baan dhegaysanayay oo leh diinta islaamka ilaalinteedu dushay iga saaran tahay, oo wixii yaroo ka dhaca oo maxay anigu ilaahay aakhira ay qabsanaya. aad iyo aad baan ugu farxay. hadal diiran oo qiimihiisa leh. marka mudane madaxweyne, halkaagaa ka wad diin u gargaarka, diin ilaalinta, maxay ahayday culimo soo dhoweynta, culimo karaamaynta. dee annana waa idiin ducaynaynaa. hadalkayga intaasaan isaga soo koob. وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. madaxweyne ku-xigeenka, رئيس البرلمانka dhammaan waa idin salaamaya. جزاكم الله ألف خير. hadalka badin maayo, waxaan ku soo aruurinayaa uun alxamdulilah rabbi alcaalamiin. bil ka hor markii noo yimaadeen akhuuna cabdirasaaq iyo wafdi uu hogaaminayey oo ay naga dalbadeen inay shirka islaamiga iyo muctamarka inay ku qabsadaan Somaliland, Hargeysana ay ku qabsadaan, oo culamadii dibad iyo gudaba ay iskugu tagaan. si sharaf liyo ayaanu ku qaabilnay. waayahay baan ku nidhi, gogoshu waa gogoshiinii, waddanku waa waddankiinii, dadku waa dadkiinii, soo dhowaada. alxamdulilah mubaasharatan waxaanu ka soo galnay oonu la xiriirnay wasaaraddii diinta iyo awqaafka, wasiirna sheekh khaliil, oonu awal ka helnay muxuu ahaa muwaafaqadii koowaad. markaa si sharaf iyo qiimo leh ayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin u dhacay. annaguna annaga dowrkana saaranna wuxuu ahaa, haddii aba kuu rooyahay, culammada soo dhoweyntoodii iyo in laga shaqeeyo sidii ay u nasan lahaayeen. dowladduna nooma kala hadhin, ama wasaaradda diinta awqaafta ha noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto, wasiir maxamed kaahin iyo tiimkiisa. marka halkaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum. adduunka waa lagu faanaa, adduuweynuhu magaalooyinku way ku faanaan inay qabsadaan dhacdooyin caalami ah. dalxiiskay kordhisaa, magaalada magaceeday qaadaa. waa waxa la yidhahdo soft powerka waxa la yidhahdo wey. oo maxay tole intaasoo milyan oo qof baa ka daawaday, online ka daawaday, dhacdooyinka maxay tole ka daawaday. market kumaad bixin, lacag kumaad bixin. adduunkana in la ismarket gareeyaa waa lacag badan bay bixisaa. marka waxyaabaha waa tala magaalo heblaayo waa tala yidhaahdo waxaa lagu qabanayaa tartanka gaadhiyada ayaa lagu qabanaya, tartanka maxay ayaa lagu qabanaya. wasaaradaha dalxiiska iyo wasaaradahaba lacag ku bixiya oo u tartamo yidhaahdo annaga noo keena. oo waad ogtiin iminka in la yidhaahdo meel heblaayo waxaa lagu qabanaya olombikii baa lagu qabanaya.
ama meel heblayo koobkii adduunka lagu qabanaya tartanka adduunka ka dhaca waynaga og maxaa la raadinaya waxaa la raadinaya magaca in la raadiyo marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hargeysa caasimadda somaliland bifadli illaahi wa karami taxta ri'aasat muuse biixi iyo dowladdiisa inay noqoto meel lagu soo hanto oo qur-aankiina lagu tartamo wacdigii iyo waanadiina lagu tartamo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran abaal baanu haynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum sida ay dowladdu noo soo dhoweysay xaqiiqatan abaalkaa maxay waan haya waxaan kaga baxayaa culamadii dibadda iyo gudahaba ka soo qayb galay jazaakum allahu khayran sacaadat alrayiis intii dibadda kala socotay online-ka marka laga reebo kumaakum ayaa isugu yimid maxay toolay oo live maxay toole u yimid muxaadarada bilaabmasa 4 iyo barka la furayo dadku kowda duhurnimo ayay sii fadhiisan jireen dumar yar markaas intay qaacadu buuxsanto ayaa hoteelkii weynaa ogeede Mansour ayaanu bac intaanu gogolnay ayaa ilaa goro meeshii lagu ciyaar jiray kubadda garoonkii ku yaallay hotel Mansour ayaa la sii goglay geedadkii oo dhan bay dumarku ay gogladeen oo kuraasi iyo gogol maxay toole la dhigay maxay markhaati u tahay arrinkaasi markhaati wuxuu u yahay shacabkaagu sacaadat ar-ra'iis inay u ooman yihiin oo u baahan yihiin oo soo dhaweynayaan kitaab Allah wa sunnata rasuuli sallallahu alayhi wasallam in loo sheego oo loogu celceliyo oo la fahansiiyo khatarta xagjirnimada khatarta ay leedahay fahamka qalloocan ee diinta laga qaataana waxa kaliya ee sacaadat ar-ra'iis awdi kara ee yarayn kara waa cilmiga saxiixa ee sharciga oo la faafiyo iyo dad culamadu adduunku ay ku kalsoon yihiin culamadii dadkan diintooda u hayay ee culamadu kalsoonida u haysay iyo dadkii la istuso oo u yimaadaan halkaas waa halka koowaad ee aynu ku yarayn karno waxa laala wixii khatar ku ah diin qalloocan oo ina soo gasha marka inaynu sidaa aad u soo dhaweyseen sidaa u gacan qabataan inaynu tan iyo kuwa ka duwanba in aynu maxay toole samayno jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي waxaan ka baryaa marka ugu horeysa inuu kulanka iyo jamaca inoo barakeeyo kulan uu aqbalay oo alla agtii maqbuul alla inuu inooga dhigo waxaa yeelay kulamada dadku isugu yimaadaan 3 kulan iyo 3 gola ugu wanaagsan golayaasha in khayr la isu farayo iyo in sadaqa la isku boorinayo iyo in cid lagu heshiisiinayo marka waa kulan ka mid ah 3da ilaahay kulamada uu ogol yahay intaasi waa iga muqadimo madaxweyne muuse waa uga mahad celinaynaa kulanka iyo xukuumaddiisa madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka madaxda kale fadhida wasiir al-awqaaf dhammaan kulankan gabagabadii nadwada kadib culimada qasriga madaxtooyada saakay madaxweyne ugu qaabilay jazaaka allah khayr waxaan mahad celinayna waxaan ilaahay ka baryaa mid mid dhala oo inta cumrigeena iyo kadibba loo aayo inuu noqdo kulankan midhaha ka soo baxa runtii khayr badan baa meeshan ka dhacay waqti badan baa la geliyey hanti badan baa gashay wuxuuna la qabanaya insaanku qabanayo wuxuu wax ku ool ku yahay marka ay niyadu daacataho dar ilaahay tahay wixii kale laakiin waa habaan manfuuran daal iyo tacab baa laga qaada marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dadaalkii badnaa ee la bixiyay xukuumad iyo shacab iyo culimo inuu ilaahay inoo ka dhigo mid niyad wanaagsan ahaa oo ikhlaas ahaa oo rabbigay aqbalay taasaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala intaa bacdigeed madaxweyne markii xukunka iyo intaan la gaadhin madaxweyne maadan ahayn oo shakhsi baad ahayd kadibna madaxweynaad noqotay kadibna adduunka waa ka tegeysaa adoo aan madaxweyne ahayn madaxda kalena waa la mid xukunka iyo kursiga ummadda u sarreeya aad fadhido mas-uuliyaddiisana waa wataa imtixaankiisa ilaahay kugu asturo adiga iyo madaxdaada xilka aad haysaan allah idinku asturo waa naas la nuugayo caano badan marka afka lagu hayo marka ay gudhana wax ka khatarsan ma jirto xilkuna waa adag yahay arrinkiisu iyo mas-uuliyaddiisu ilaahay xilka aad haysaan wasiire iyo madaxweyne ku-xigeenna iyo madaxweyne allah idinku asturo oo idinku ducaynayna mid allah agtii janno ku heshaan oo allah ku asturantaan agtiisa oo khayr ka heshaan ba allah idinka dhigo wakti kulul wakti adag aakhir zaman ah dadkiisu adag yahay
imtixaankiisu badan yahay baa noloshu iyo xilku ku soo beegmay oo gebagaba ah waktina waktigu ka dambeeya waa kasii adagyahay wuxuu u baahan yahay soo jeed badan wuxuu u baahan yahay ilaalin badan waxay u baahan tahay waajib badan oo la guto waxay u baahan tahay dulqaad badan intaas oo dhan bay u baahan tahay social mediahuna waa dheeriyo imtixaan ah waagii hore bahalkaasi ma jirinba laakiin iminka wax madaxweyne kasta oo xakamayn karaa dee ma jiro ayadaa isagoo fadhiyo qofku wuxuu raba sheegaya waxaan dardaarmayaa madaxweyne diinta inaad xoojiso sida aada hadalladaaduna ka mid tahay waa kugula dardaarmaynaa anaguna intaa kursigaa aada fadhida iyo xilka caqligaaga maamulkaaga aqoontaada dadaalkaaga inaad isugu geyso iyo xukuumadda iyo xukunkaada hayso diintaa ilaahay horumarinteeda intii itaalkaaga ah waxaan itaalkaaga ilaahay ku weydiin maayo fataquu llaha ma stadactum wey wixii aada qabateen allah ka abaalmariyo wax badanna allah ku waafajiyo oo dambe shacabku madaxweynaha aada u tahay duruuf badan baa ku xeeran faqri badan baa haysta baahi badan baa haysata xagga caafimaadka xagga tacliinta xagga dhaqaalaha xag yow badan buu ka dhibaataysan yahay laakiin wax ka qabadkeedu inta kursiga aada ku fadhido kulli wax kama wada qaban karaysid waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo wakti dheer waxay u baahan tahay inaad garab iyo xoog u hesho keligaa waxaad ka qaban kartid maaha laakiin marka la iskaashado shacab iyo xukuumad ayaa wax badan la qaban karaya dadka la tashigiisa qaybaha kala duwan bulshada inaad aada ugu dadaashid ganacsatada culimada waxgaradka dumarka ragga dhalinyarada la tashiga bulshada iyo dhegeysigooda ciidamada iyo qaybaha kala duwan shacabkuna waxaan ugu baaqayaa wax alle wixii wanaaga waajib bay ku tahay in isku ka garab taagaan oo kaala shaqeeyaan maadaama iyagu ku doorteen oo xilka ku dhiibeen waajib bay ku tahay inay ku caasiyaanna dembi bay ku tahay iyagana waxaan leeyahay wax alla wixii wanaagsan samcan wa taacan waa inay kugu garab galaan adigana allah kuu fudeya subxaana wa tacaala dadkaas baahan dad baan qadayn oon quraacan oo cashada say ku helaan ay adagta kuwaa buka aqalada jiifa cusbitaallada jiifa miyiga jiifa waxay dhakhtar ku agaan aan haysan dadkaas oo dhani xilkooda waa ku saaray su-aasheeda waxaa lagaa weydiinaya aakhiro ilahay hortii subxaana wa tacaala waa waxaan u leeyahay ilahay ha kugu asturay xilka iyo mas-uuliyadda laakiin dadaalka aada samaysid iyo xilka aad dadaashid wax weyn bay ka noqon kartaa berito iyo hawsha caynkaas ah hawshaas aad baan u dardaarmaya shacabku iyo waktiga la joogo waktiguna waa adeeg yahay samirkan kuu dardaarmaya iyo dulqaadka waa lagu maagayaa waa lagu caayayaa qaar baa kugu soo farabaxsanaya burka la soo cararaya deer markay ku arkaan dulqaadka iyo maxaan ku idhaahdaa iyo wixii la mid ah waa kuusii dardaarmaya insha allahu tacaala waxa weeyaan odaynimada iyo waayo aragnimadu dee kula socotaa wax weyn ah aad shacabka fahamsanti taana waa dardaarmi lahaa madaxweyne waa iga dardaaran saa mar dambe isu arki doono ilaahay baa garanaya oo madaxweyneyaasha sida loogu soo galaaba adag annagu albaabadan guryahan joogna waa masaajidda waa iska furan yihiin barino oon ugu ashtakoona u sheegan marka kulligan horta saasaanu isfaraynaa xilka iyo madaxtinimada iyo ilaahay subxaanahu watacaala uu idinku sharfay inaad ilaahay la hoos gashaan oo baryada ilaahay aada badisaan ilaahay idinku garab galo innagana waa idiin ducaynaynaa insha allah mid yar oo waxaan wadanka waxaanu ku aragnay oonu ku faraxsannahay oonu aad iyo aad ilaahay uga mahadinaynaa nabadgelyo waxaan oran karaa anigana mujaamalo iga ahayn oon cidna ugu dhowaanaynin na soo booqanayay in dadaal xoog le lagu jiro oo aad iyo aad u weyn sidii looga hortegi lahaa wax alla waxa diinta ilaahay ka hor imanaya